Cunista Ukuntu runtii waxay hoos u dhigi kartaa kolestaroolka xun. Daraasad cusub ayaa tiri. Sanadihii la soo dhaafay, tilmaanta ku saabsan cunista beedka ayaa ahaa mid aan is-waafaqayn, iyadoo cilmi-baarisyada qaar ay soo jeedinayaan in doorashada caanka ah ee quraacdu ay tahay mid wax u dhimaysa caafimaadka qofka, halka daraasaadka kale ay kor u qaadaan inay yihiin ilo aad u wanaagsan oo borotiin ah iyo nafaqooyin kale. Hageeg, daraasad cusub ayaa codkeeda ku daraysa jirka sii kordhaya ee caddaynta in ukunta ay runtii ku fiiran tahay. Waa baadhista saamaynta goonida ah ee dufanka buuxa iyo kolestaroolka ee heerarka lipoprotein ufan yar ama xun kolestaroolka jirka. Ukuntu waxay muddo dheer si aan cadaalad ahayn u dildilaacday talada cuntada ee duugowday. Waxay yihiin kuwo gaar ah, waxaa ku badan kolestaroolka, laakiin dufanku ku yar yahay. Haddana waa heerka kolestaroolkooda taas oo inta badan keentay in dadku ay su'aalaan booskooda cunto caafimaad leh, ayuu yiri saynisyahanka jimicsiga Jonathan Buckley oo ka tirsan jaamacadda koonfurta Australia. Daraasadan waxaan ku kala saarnay saamaynta kolestaroolka iyo dufanka buuxa, annaga oo ogaanay in kolestaroolka cuntada ee sarreeya iyo ukunta marka la cuno qayb ka mid ah cuntooyinka dufanku ku yar yahay aysan kor u qaadin heerka kolestaroolka xun. Taas beddelkeeda waxay ahayd dufanka buuxa oo ah sababta dhabta ah ee kor u qaadida kolestaroolka. Cilmi-baarayaashu waxay qorteen hal qof oo qaangaar ah oo leh heerarka asaasiga ah ee kolestaroolka waxayna u xilsaareen inay qaataan 3 cunto oo kala duwan midkiiba 5 toddobaad. Wadarta 4 ka qaybgalayaashu waxay dhammaystireen dhammaan 3 cunto. Midda koowaad waxay ahayd kolestarool sare, cunto dufanku ku yar yahay oo ay ku jiraan 2 ukun maalintii. Midda labaadna waxay ahayd kolestarool hoose, dufan aad u dheragsan oo aan ukun lahayn. Ugu dambayntii, tan saddexaad waxa ku badan kolestaroolka iyo dufanka buuxa labadaba, waxaana ku jiray 1 ukun toddobaadkii. Natiijooyinka waxay muujiyeen in cuntooyinka ay ku badan yihiin dufanka buuxa ay la xiriirto kor u kaca heerarka ee kolestaroolka. Si kastaba ha ahaatee, kolestaroolka sareeyo, cuntada dufanku ku yar yahay waxay soo saartay hoos u dhigista heerarka kolestaroolka, taasoo soo jeedinaysa in ukumuhu aanay mas'uul ka ahayn kolestaroolka xun. Waxaad dhihi kartaa waxaan keenay cadaymo adag si aan u difaacno ukunta hoose, Buckley ayaa yiri. Marka ay timaado quraac la kariyey, ma aha ukunta aad u baahan tahay inaad ka walwasho, waa adeega dheeraadka ee hilib doofaar ama dhinaca sawsaga taas oo u badan tahay inay saamayn ku yeelato caafimaadka wadnahaada. Cilmi-baadhistan ayaa lagu daabacay joornaalka Maraykanka ee nafaqada caafimaadka.